Bilan Cusmaan oo ku nool dalka Sweden ayaa maalmihii la soo dhaafay hadalhayn ka dhalisay guud ahaan baraha bulshada gaar ahaan dalkaas kadib hadal uu sheegay nin isagoo dalkaasi ka soo jeeda. Gabadhan oo wariye ah asalkeeduna Soomaali yahay ayaa u ololeysa arrimaha Islaam nacaybka iyo kooxaha midigta fog ee dalkaasi, iyadoo qortay maqaallo badan oo ay kaga hadlaysay arrimahaasi. Ninka sida la sheegay isaguna wariyaha ah dalkaasna u dhashay ayay isbarteen, kaas oo Bilan qudheeda sheegtay inay 2 sano oo xiriir ah la lahayd, balse waxa uu sheegay inuu soo bandhigi doono cadeymo muujinaya waxa dhabta Islaamku yahay, sida ku xusan qoraal uu soo dhigay barta internetka. Arrintan ayaa hadalhayn ka dhalisay baraha bulshada Soomaalida ee qurba joogta. Eedeymaha uu soo jeediyay Bilan ninkan lagu magacaabo Christian Peterson ayaa waxaa ka mid ah inay baahisay ilwareed loo baahnaa in la qariyo. Hadalka ninka kadib, Bilan ayaa barteeda Twitter ka soo dhigtay qoraal taxane ah oo ay isku difaacaysay kagana jawaabaysay waxa uu sheegay ninkaasi. Qaarkiin waad aragteen baan u maleynayaa inay socoto dhaleeceyn aan raad lahayn oo aniga igu saabsan oo ka socota baraha bulshada. Waxaa dhaleeceyntaasi iyo eedeyntaasi xun u ololeynaya mid cunsuri midigta xagjirka ah ka tirsan. Waa isla ninkii abaabulay in la gubo Qur'aanka Kariimka 2 sano ka hor, waxaana xiriir la lahaa 2 sano, taas oo aan sir ahayn oo ay ogaayeen inta badan dadka aan isnaqaanay, saaxiibada iyo qoyska iyo weliba dadka aan wada shaqaynaynay dhammaantood way ogaayeen. Xiriirkaas ayay ku bilowday qoraalkeeda. Si kastaba ha ahaatee, Bilan waxa ay sheegtay nooca xiriirka ay la lahayd ninka inuu ahaa mid saxafinimo ee uusan ahayn mid jacayl. Waxa ay sheegtay in baaritaan ay ku sameynaysay kooxaha midigta fog ee ninkani uu ka tirsan yahay, sidaas darteedna uu ka mid ahaa dad ay xiriir la sameysay, isla markaana ay xoogaa naxariis ah u muujisay si ay u dhex gasho qalbiyadooda. Haddaba waa tuma Bilan Cusmaan. Bilan waxay magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ugu dhalatay waalidiin ka yimid Soomaaliya. Waxay ahayd bare sare oo maadada chemistry-ga ka dhigi jirtay iyo sidoo kale u dhaqdhaqaaqa. Waxa ayna ku soo barbaartay magaalada Battelle. Awowgeed oo dhalay aabaheed oo lagu magacaabo Nuur Cismaan waxa uu ahaa gabyaa. Waxay saxaafadda ka baratay dugsiga sare ee Bonnafolk. Bilan waxa ay ku qori jirtay sanadihii 2018-2022 wargeyska Venezia Expo. Waxay sidoo kale maqaallo iyo aragtiyo ku qortay daabacado kale. Waxay sidoo kale maqaallo iyo aragtiyo ku qortay daabacado kale oo Swedish ah. Laga soo bilaabo 2013, shaqadeeda asaasiga waxay ahayd bara, kadibna waxa ay ku biirtay ururka Ibn Rashid Study Association. Intii ay ku jirtay saxaafadda, waxay maqaallo badan ka qortay cunsuriyadda iyo Islaam nacaybka, waxaana ka mid ahaa maqaal ay ciwaan ugu dhigtay "Hadda waxay si lama filaan ah u noqotay in laga hadlo Islaam nacaybka." Sanadkii 2013, Bilan waxa ay ka mid ahayd 5 saxiixiyaal warqad furan oo lagu daabacay wargeyska Aftonbladet oo ku boorinaysa haweenka Muslimiinta ah ee Sweden inay xijaabtaan kadib haweeney uur leh oo uu nin ka soo horjeeda xijaabka Stockholm ku weeraray. Waxa ayna markaasi sheegtay in kooxdu ay doonayso in xijaabku uu caadi ka noqdo Sweden, iyadoo ka jawaabaysay dilkii George Floyd ee dhaqdhaqaaqii Black Lives Matter ee Mareykanka. Bilan Cusmaan waxa ay sheegtay inay rabtay inay bilowdo wada hadallo ku saabsan caddaannimada gudaha Sweden. Waxay ka hadashaa xagjirnimada garabka midig, waxaana lagu eedeeyaa xagjirnimada garabka bidix. Horaantii 2024, qoraal Facebook ah oo ay ku muujinaysay xanaaqa dadka caddaanka ah ayaa horseeday dhaleeceyn. Sanadkii 2014, Bilan Cusmaan waxa ay ahayd qofka helay abaalmarinta sanadlaha ah ee Elsa ee gudaha Swedish-ka ee ka hortagga nacaybka, kaas oo la siiya shakhsiyaadka ama kooxaha kuwaas oo isticmaalaya warbaahinta bulshada ama siyaabo kale ee ka hortagga nacaybka. Sanadkii 2020, waxay ahayd mid ka mid ah 4 musharax oo u sharaxnaa abaalmarinta xidigta soo kacaysa ee ururka daabacadaha joornaalka Sweden. Si kastaba ha ahaatee, mowduucyada ay Bilan ka hadashay ayaa asal ahaan ah kuwa muran ku xeeran yihiin, iyadoo waayadii u dambeeyay ay sare u sii kacayeen kooxaha midigta fog ee qaar ka mid ah dalalka Yurub oo ay Sweden ku jirto.